بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعنا وناكسنا دمان بادا وضيال ملك صوتا فها دونيدا كجوكتان كسو دوادا برنامج كي مرتدا كالسان او ايدين كو ايمانايا كالسان تي في ستوديسا مغالتا لندن برنامج كا مرتدا كالسان دا وضيال تضبات كان waxaanu ku qaada dhigi doonaa ku eegi doonaa in badan waxaanu ka hadalnay wadamada dibadda iyo xagga siyaasadda marka la eego laakiin toddobaadkan waxaanu jecelahay inaanu fursad siino bal wadankan aynu deganahay ee UK ama Britain gaar ahaan marka la eego xagga waxbarashada oo isbedelo isdaba joogay ay ka imaanayeen ama ay ku soo kordhayeen isla wadankan waxaanu sida gaar ah diirada u saari doonaa waxbarashada sare ama jaamacadaha waxaan jecelahay barnaamijkan inuu igala qayb qaato oo marti igu ah Cabdiraxmaan Yuusuf Maxamuud oo isagu ah la taliye sare oo xagga waxbarashada xaafadda Brent ee galbeedka magaalada London aadayn Cabdiraxmaan markii hore kugu mahad celinaya ka soo qaybgalka barnaamijka martida Kalsan iyo gaar ahaan waxbarashada UK waad mahadsantahay Faisal iyo gaar ahaan bahda waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa bahda Kalsan TV gaar ahaan laantan UK iyo adigaba jaanisada had iyo jeer noo siisaan markaan ka hadlayno arrimaha bulshada aad iyo aad baa mahadsantihiin way Cabdiraxmaan sidaan ka warqabno sanad kasta marka la gaaro sida cashuuraha kalaba bisha April marka la gaaro isbedelo ayaa wadanka ku yimaada gaar ahaan xagga dhaqaalaha xagga cashuuraha san ka dhawaajiyay iyo xagga waxbarashadaba marka waxaan jeclahay inaad muuqaal guud ama sawir guud naga siiso April waa la gaaray waa 2016 maxaa isbedela Faisal aad baad mahadsantahay waxbarashada April had iyo jeer isma bedesho wax bisay ilaa iyo September iyo October gaar ahaan higher education-ka ama waxbarashada sare ee jaamacadaha runtii sanadkan imika isbedelkii qorshihiisa isbedelka lagu jiraa laakiin si fiican wax walba isbedelayaan sanadka dambe insha Allah 2017 ayaa aad iyo aad kala guurkii national curriculum-ka higher education-ka uu noqonaya ama further education-ka ee wadankan UK laakiin waxa ka jira marka horeba caqabado badan oo magaranaysa dhalinyarada Soomaaliyeed ee jaamacadaha doonayaan inay galaan had iyo jeer hortaagan taasoo had iyo jeer ay si yaraanayaan dhalinyarada Soomaaliyeed inay ku guuleystaan inay noqdaan dhakhaatiir inay noqdaan injineero marka loo eego waxbarashada UK way wadanka Cabdiraxmaan waxaan ka warqabnaa in Soomaalida high schoolada dhigata ubadkoodu ay dabcan aad iyo aad u badanayaan sanadba sanadka dambe ay aad u soo kordhayaan caqabadaha marka hortaagnaan kara si ay dadweynuhu inoola wadaagaan maxaa ka mid ah leedahay inuu ilmuhu markaa uu hanto pointska ama lambarada laga rabo si uu jaamacadii u tago caqabadaha waxa weeye UK wuxuu ka duwan yahay wadamada kale European Union-ka wadamada kale European Union-ka East Europe-ka iyo caalamkaba qofka jaamacadda wuxuu galaa markuu sito shahaadadaha dugsiga sare UK shahaadadaha dugsiga sare jaamacad lagu galo sidaa daraadeed waxa jaamacad lagu galaa 2 sanadood ka sareysa oo la yiraahdo A levels labada sanadood ee higher education-ka ee GCSE-ga marka uu ardaygu ka baxo uu galo aad iyo aad baa loogu kala haro waxbarasho adag oo ku qiimeysan ilaa HND ama ku qiimeysan waxbarashada jaamacadaha Soomaaliya laga dhigo taasoo ma garanaysaa ardaydu ma garanaysaa aad iyo aad ugu adag had iyo jeer aan tala ka helin maadooyinka ay dooranayaan taasoo la xisaabiyo waxa la credit points kii hadduu half yar ka dhignaado jaamacadii ma galaysi jaamacaduna waxa weeyaan iyaguna waxay ku jiraan league table dheer bay ku jiraan aad iyo aad bay mid walba ujeedo gaar iyo miftax gaar ah lagu galaa marka waxa had iyo jeer ardayda Soomaaliyeed ay waayeen tay doonayeen waana nasiib darro aad laakiin waan ula dadaalnaa inay helaan caqabadahaas markii ka hor yimaadaan ardaygii Soomaaliyeed dabcan waalidkii in badan waqti geliya si uu u hanto ama jaamacadaas uu u dhameeyo oo isagu markaa habiga ku yahay oo mustaqbalkiisa uu hadda u waafaco si loo gudbi karaa sida marka caqabadaha waxa weeyaan ardayga Soomaaliyeed UK jooga markuu labada sano GCSE ka baxo GCSE waxay ku xidhan tahay inta maado qaatay haddii ardayga uu qaato maadooyin 10 maado uu GCSE uu ku qaato oo uu baaso in ka badan 6 ama 7 waxay yiraahdaan GCSE profile-kiisu uu wanaagsanaanaya waxa loo ogolaanaya labada sanadood inuu galo ma garanaysa A level-ka labadaas sano A level-ka waa la xisaabiyaa waxa loo xisaabiyaa points-ka haddii uu ardaygu ka hooseeyo 300 points way ku adkaanaysaa inuu galo jaamacadaha wanaagsan jaamacadaha UK-na waxa weeyaan 126 jaamacadood marka 26 ka jaamacadood ayaa aad iyo aad la isugu jaajaa oo ma garanaysa adduunka kaga jira league table-ka meel sare oo toba waa gartay lixda jaamacadood horta ugu horeysa arday smart baa gala ama ka bari kala fara lixdaas waa Oxford iyo Cambridge marka waa challenge UK-na ardayda jaamacadaha balaagasay waa 1 milyan marka 1 milyan sanadkii abalaay garanayo waxa hela
half million oo meesha ka baxay marka taas waxay ku tusaysaa competition inuu badan yahay labana ogolo Oxford iyo Cambridge in la wada apply gareeyo taas waxay ku tusaysaa in la doonayo qof walba inuu chance helo waayo ta aad apply garayso qof walba position-kii ka jam garanaysaa marka waxyaabahaas oo kale ayaa had iyo jeer ardayda Soomaaliyeed ku dhaca oo dib u riixa oo had iyo jeer ma helaan 25 jaamacadood ee research group gaar ahaan ma helaan dhakhtarnimada injineernimada iyo biology kale marka taasaan had iyo jeer aan imika u soo jeesanay oo isha ku haynaa inuu ka caawino siyaabo kale oo loo sameeyo markaan nimaadno arrinta xagga dhaqaalaha iyo tuition fee-gii lacagtii ardayda laga rabay wax macluumaad maxaad nooga haysaa inay isbedel ku yimiday iyo inay intii hore una ahay weli tahay tuition fee-ga muslim ahaan waxaan ku dadaalay in muslim laga dhigo oo ama hadda la bixinayo waxbarashada ma garanaysa petition baanu sameynay badan oo ilaa iyo 200,000 oo qof ay sameeyeen waan ku guuleysan weynay sidaa daraadii tuitionku waa sidiisii tuitionku waxa weeyaan waa aad iyo aad buu qaali u yahay waxa weeyaan 3 sanadood aad first degree-ga sameeysan bachelorka oo ardaygu sameynayo sanad walba wuxuu u baahan yahay 9,000 oo pound oo u dhiganta 12,000 ilaa 3,000 oo dollar oo aan ku jirin lacagtii uu ku noolaanaya ardaygu marka hadda jeer ardaydu maxay heeday ardaydu waxa weeyaan way amaahdaan markay amaahdaan ardaydaas lacagta ay amaahdaan qaar badan baa yidhaahdo waa riba oo amaahdaa diida taasuna waa caqabad kale oo ardaydii dee ka xidhaysa inay higher education-kii ay galaan lacag ay wax ku bartaan ay tahay ingiriiskuna waa wadanka ugu waxbarashada qaalisan oo adduunka oo dhan baa jaamacado qaaliga ku yaala 6 jaamacadood aad iyo aad top 10-ka ku jira ayaa la isku jaajaa iyo jaamacadahan kale sidaa daraaddeed caqabado badan oo xataa lacagta deynta ayaa ardayda Soomaaliyeed hortaagan sidaa daraaddeed iminka jaanisyo kale oo la shift garoobay ayaa soo baxay oo ay wadamada kale Yurubta ay wax ka bartaan maadaama inta badan aad ku dhex jirto qaybta waxbarashada dee mas-uul aad ka tahay xaafadan degantahay Brent galbeedka magaalada London ardayda helaya fursadda ku saabsan jaamacadaha ugu sarreeya 6 aad ka dhawaajisay intee buu leeyahay ka Soomaali ahaan runtii lambarka ardayda Soomaaliyeed Oxford University ku jira sanadkan aad iyo aad bay u fiican yihiin anigu waxaan aqaan ilaa 5 waxa laga yaabaa inagu waxaan naqaan Oxford College laakiin Oxford College waa 22 university ayaa magaca Oxford la yiraahdo marka 22 ka college ku bahoobay anigu dhowr jeer aan tagay sanadkan waxaan ku arkay arday maxay ahayd laba arday oo aniga groupkayga ahaa iyo 5 arday oo kala dhiganaysa ilaa 7 arday ayaa dhiganaysa waa lambar aad iyo aad u wanaagsan laakiin waxay ardayda Soomaaliyeed ku yar yihiin Cambridge sanadkan ma badna arday 3 ilaa 4 ayaa maxay ahayd arday Soomaaliya ka yimid scholarship siiyay ilaa 3 arday oo kale aniga igu maqaala ardaygii hamigiisu yahay dee jaamacadaas dad ka dhawaajso kale laakiin aan gaarin grade-kii laga rabay kaalmo intee lagu idin ka heli karaa ama xaguu aadi karaa haddii uu rabo dee in au wax ka caawisa aniga waxaan la taliyaal waxbarasho oo qualified ah marka ardayga doonaya inuu dhakhtarnimo sameeyo kale tusaale ahaan ee doonaya Cambridge inuu galo caqabado badan baa horyaala horta marka ugu horeysa dee ma garanaysaa grade-kii laga doonaya A star 3 A star ayaa laga doonaya oo credit points wax la yiraahdo points badan baa laga doonaya 400 points ayaa laga doonaya waxa laga doonaya inaad baasto tallaabooyin dhowr ah oo kala duwan inaad interview-ga baasto inaad is-iibiso aad personal statement qorto aad ka hadasho sababta ku kaliftay inaad jaamacadda adiga kugu sareysaa gasho inaad ma garanaysaa laga qaado interview kale oo la critical thinking test oo IQ-ga intelligence-kaaga la eego oo face to face one to one in imtixaan gaar ah oo la inter exams aad gasho oo isaguna aad iyo aad u adag waxaan arkay sanadkan arday Soomaaliyeed oo intaas oo dhan kasoo tallaabsaday oo haddana la soo diiday oo intaasoo waraaqii lagu soo diiday caqabadaha way badan yihiin the competition ku badan yahay international university haddana markuu ardaygu yiraahdo inuu subject-kaasaan baranaya dhakhtarnimadaasaan baranaya oo jaamacaddii diido waxaan ku booriyaa inuu taa haddii waayo jaamacadda wanaagsan inuu jaamacad kale oo ka hooseysa galo haddii markaa diiday ardaygu yiraahdo meeting dooni maayo oo waxaasaa jira waxaan u offer garaynaa wadamada jaarkeena Faransiiska oo kale Jarmalka oo kale in maxaa hada uu galo haddii taa kasoo bixi waayo waxaan u offer garaynaa wadamada East Europe inuu galo markaas si aanay harin options ka badan imika laba sano ka hormaan aan u badinayno oo
anaga laftigaygu marka taa waayo tan ma weydo dee markaa si kale u jahan jirnay laakiin marka waxaanu siinaa inaanu ardayga niyadiisii iyo wixii doorashadiisii iyo choicekiisii aanu ka bixin ee jaansiyada aan u badino aan u ballaarino platformka aan time na siino aan ku nidhaahno kasoo feker halkan waxaan u joognaa inaan ku caawino adiga marka saasoo kale aanu taladaa keenay waan ku guuleysanay way dawladdu budget intee lag bay ugu talagashay is leedahay weliba khaasatan dee marka la eego ama Pakistaanida ama dadkani dee yimiday aad ogtahay ama luqadii ama yani caqabado badan inay ka hor yimaadeen ma ka duwan yihiin mise processka waxa la marayaan in dadkan dee UK ku dhashay ardayda foreign sidoo kale ilka yimi horta marka ugu horeysa ardayga halkan imaanaya waxbarashadu waa qaali way oo waxa weeyaan sagaalkan kun ee lagu galaayay ma garanaysaa fiiga waxbarashada quraaniga lacagtii ad ku dhaas ku jirin isagoo u dhibay marka hore arday halkan imanaya waa arday wealthiya family laban ka yimi oo lacag badan haysta iyadoo sidaasay tahay haddana wixii imika ka dambeysay 5 sano imika ugu dambeysay immigrationku wuu soo eega ardayga halkii uu backgroundkiisa waa la eegaa xagga kale in xagjiriga waa la iska eegaa marka arday dhisan oo advisory consular soo baaray oo la soo baaray oo qof daba socda oo dhisan ayaa yimaada iskumana qaadaan jaamacadahan aan ku sheegay top 5ka waxay galaan jaamacadaha la Russell Groupka iyagu 20 ka top ku jira 20 ayay galaan si fiican u waxa weeyaan waa lacag baa haystaan si fiican ay maxay ahayd u degaan laakiin waxa meesha ka baxay ardaydii faqiirka ahaa ardaydii scholarship ka heli jiray ayaa aad u yaraaday xagga UK laakiin way jiraan meelaha kale Yurub way kaba soo qaad wiilka ama ardayga Soomaaliyeed ama Muqdisho ama Hargeysa ama Kismaayo ama Beledweyne jooga ama Boorama joogaba tusaale ahaan oo waxbarashadiisii isagu damcay ama awoodba ay u saamaxday inuu higher education hawsii dhamaysto oo waxbarashadiisii wadamo ku soo dhamaysto aanan ognahay ma baasaboorada dee ama wadankeena dhibaato ka tahay fursado intee lag way u heli karaan in iyagu ay jaanisada noqon ay helaan والله فرصدون كأدي أبو بيهين وحنا كنا نقول سنة إنه شجع أرض الصومالية أدون كوفي القصن كارهان كو أفريقيا تشوجا يعني مقرنا يسدوني إنه وحبرشوا صريح الآن هذا نقطة باتشولاركي هذا نقطة ماستركي هذا نقطة PhD أدون كنا كوفر فرمي أدي أدو فرمي كارهان مقرنا يسا إيس يوروب أي أدو فرمتي ودون يسا حسين يسا أرضي مقرنا يسا يحبرته nimankii milyaneerada ahaa jaamacadi iibsaday marka jaamacadii dawladda boqolkiiba konton waxay isu bedelayaan xaggan East Europe wadamada East Europe private bay isu bedelayaan marka waxay aad iyo aad doonayaan inay soo jiitaan ardayda magaraysa Afrikaanka inay soo jiitaan waxay markaa u qaybsan laba wadamada magaranaysa ku jira 26 ama 27 wadan AAU-da la yiraahdo iyo wadamada aan wali soo gelin marka labada wadanba xagga waxbarashada international student-ka waxay ku xidheen immigration-ka ku xidheen marka way isku xidhan yihiin marka ardayga Soomaaliyeed ee Afrika jooga ama Soomaaliya jooga haddii isagu sidaahda aqbalay garo jaamacadii oo lacag laga qaata wuxuu waxa ka hor imanaya gidaaro soo celinaya waayda immigration-kii ayaa ku xiran adduunka imika khatar bay u arkaan way iska baaran qof kasta oo wadankooda imanaya laakiin waxa jira qofka dhisan ee bayskiisu dhisan yahay lacag haysta waxa weeyaan process la maro oo talaabo oo 5 talaabo ah processkaas uu maraya hadda ayna markuu processka maro nasiibka soo qaadayo wuxuu tagayaa safaaradda buu tagayaa interview buu galaya marka ardayda noocaas oo kala doonaysa waan jecelahay in la soo xidhno si aan u siino interview galay su'aalo la weydiinayo si aan u siino procedure-ka la garanaysa in la baarayo in xajiriyo in kale in la iska baarayo in taariikh geliyo in kale marka qofka akademiga taariikhkaas oo kale si ku waan karaan waan ognahay in dhalinyaro badan xitaa Turkiga timid waxbarashadii aad fiican ka helay Turkiga ay soo dhaafeen oo Yurubta kale ay soo galeen baaritaanada noocaas in la xad si ku waan karnaa waxay ku ogaanayaan waana ku dhimika waxa ku xidhan higher education-kii especially ma garanaysa foreign student-ki international student-ka waxa la ku xidhan home office-ka fiisa lama siinayo ilaa home office-ku yiraahdo siiya waxa kale ma garanaysa in kala soo saaro wadamo badan sida Turkiga iyo Bulgaria iyo Romania waxay soo saareen in ma garanaysa laba qof reference uu keenaba horaba waxay soo saareen in qofkani tahriibiyo akademi yahay ee imtixaan laga qaado oo haddii waxba qori kari waayo kan waxa waxa laba qof oo garanaysa damiina inuu keeno waxa la weydiinayaa ku consular iyo ku advisor ayaa kugu taliya noqoto haddii cid sheegay oo yiraahdo internetka xasan ka eeg isagana caqabad ku noqonaysa waa laga fiirsanaya interview-dan dheerna ilaa 5 su'aalood waa la weydiinaya marka wuxuu baahan yahay qof advisor oo ku haga caqabadahan
gaarsiiyey inuu interviewga nasiibkiisa ka qaado intaanu lacag bixin kabacdina hadduu interviewga helo dee markaa wuu helayaa jaamacaddii weliba saas marka hore laga harimayo ogow lagama harayo hadduu 6 sanadood doonayo dhakhtarnimo inuu sameeyo ishaa lagu haynaya hadduu 4 sanadood doonayo inuu bachelor sameeyo ishaa lagu haynaya laakiin fursado ardayda Soomaaliyeed ka faa'iideysan karaan gaar ahaan kuwa sameynaya masterka aad iyo aad buu jaban yahay PhD sameynaya aad buu jaban yahay way ka faa'iideysan fursadaha wadamada loo sheegi kartaa wadamada hadda wadamada Eastern waan ku sheegay wadamada Bulgaria Romania wadamada Ukraine Russia Belarus Georgia wadamada noocaas oo kale ah waxa weeyaan aad iyo aad waxbarashada u furfureen laakiin waxay doonayaan in qofkaas ma garanaysaa inaanu ahayn qof tahriibayo naftiisa khalkhal gelinaya qofkaas inuu yahay qof basekiisu dhisan yahay qualification basekiisu dhisan yahay school la garanayo oo website leh oo haddii wax la weydiinayo meesha shahaadada ka timi inuu iskuulka ka soo baxay inuu qofkaas iyo qof doonaya inuu wax barto ee naftiisa haligeen oo tahriibaya waayo qofkaas haddii isku dayo imika wixii sanadkan 2016ka inuu tahriibo qofka waa si kastaba magaraysa waa la qabanayaa hadduu fiisa ku yimi waa la qabanaya haddii aan meel kale ku yimi waa la qabanayaa markaa waxaa la oranayaa fiisaad ku timi fiisa waddanka kaga bax marka anigu kulliga ka gelin maayo hadii tahriibaysa laakiin waxna aan ku booriyo haddii doonayaan inay maxay ahayd waxbartaan ee iska bixinayaan fiiga ama doonayaan scholarshipka inay apply gareeyaan oo ay raadsadaan kuwaasoo kale waan caawinaa hadii jeero oo la soo xidhiidhaan maadaama hadda waxaan ku jirnay waxbarashada waddanka UK arday badan oo caqabadaha laftigooda ay ka hor yimaadeen baa jirta oo ama waxbarashadii dee jaamacadaha rabeen halkan ay ka heli waayeen miyay adkaanaysa inay wadamada Eastern Europe ay jaamacadaha kuwa ugu sarreeya wadamada marka la eego iyagu dib ugu noqdaan ama oo lacagtu marka yar tahay waan ku bilowday halkan waan ku bilowday gaar ahaan West London ardayda waan ka darnay ilaa iyo dhowr iyo 10 gaaraya waxaa jira arday badan oo jaamacadaha ma garanaysaa ay diideen waayo waxay ku baaseen imtixaankan ee levelka grade aad u hooseeya waxna way niyad jabeen waxaa jira arday iyaguna ma garanaysaa iyo amaahda qaadan mayno waa xaaraan waxaa jira arday iyaguna inta dagaalameen high schoolka ku dagaalameen criminal record galay oo dadna jaamacadii diideen ardayda noocaas oo kale ah waxaan kula talinaa markaan aragnay inuu GCSE qualification haysto inkastoo GCSE uu haysto aanu haysan laakiin A level waxaan la raadinaa jaamacado GCSE qaadanayo maadooyinka uu ka dhacayaan qaadanin oo East Europe marka waliba waxaan ku boorinaa inuu qaato magaranaysa professional ku shaqeysto sida dhakhtarnimada oo medical field oo dhan ilkaha dhakhtarka ilkaha noqoto dhakhtarka indhaha noqoto inaad noqoto dhakhtar caadi aad iyo aad waan ugu guuleysano oo lambar aad iyo aad u badan ayaan UK ka baxa sanad walba oo tago wadamada gaar ahaan ardaydan fursadaha halkan waayo weeyaan goorma wadamada ku adkaatay ana diiday lacagta amaahda inay qaataan aad buu ku lambar ku badanaya waxaan halkan ka boorinayaa ardayda dambiyada galay waxbarashadii ka niyad jabay inuu weli jiro Chinese kale oo wax ku baran karaan iyagoo scholarshipka aan ku caawin karno iyo iyagoo wadamada kale lacagta yar $2,000 aan maxay ahayd ay tagi karaan wahag Cabdiraxmaan aad baa maasantay khadka telefoonka haddii ay hal ama laba su'aalood ay jiraan oo dabcan daawadasho ay rabaan in Cabdiraxmaan weydiiyaan si ay ubadkooda ay uga qaataan kaalinta waxbarasho ee heer jaamacadeed khadka telefoonka waa idin furayay wahag Cabdiraxmaan Soomaalida marka laga waddanka UK dabcan tiradooda aad bay u sii kordhaysaa ardayda jaamacadaha ama galaya ama u hiloobayaan runtii aad bay u badan tahay maxaad qiyaasaan nooga sheegi kartaa markaan isbarbar dhigno sanadkan ama sanadadii ka horreeyay iyo kan hadda lagu jiro yani qiyaas ahaan maslaha Soomaalidu hadda they are on the right track way ku jiraan macnaha jidkii wallahi sawir caqabado weli intii la hoolaysan gaarsan lamarka ma garanaysaa ardayda Soomaaliyeed ee UK ardayda Soomaaliyeed UK jooga aad bay badan yihiin waa aad iyo aad u badan weeyaan carruurta Soomaaliyeed ee UK ku dhaqan waa 100,000 meelahaas waa lambar aad u badan 100,000 ilaa 25,000 ayaa ma garanaysaa u diyaarinaya jaamacada galaan ama bilaabay nasiib darrada meesha taagan waxa weeyaan ardayda Soomaaliyeed ee engineering galaya ama dhakhtarnimada galaya uu sii yaraanaya sanadba sanadka ka dambeeya taasaa u baahan inaan u highlight garayno ama aanu tusno inay jiraan sifayaal kale oo dhakhtarnimo lagu noqon karaa inay jirto caqabadaha noocaas oo kale ahi way soo badanayaan marka loo eego sanadkii 2015 iyo 2014 waxa ka badan 2012 iyo 2013 oo imika ilaa sanadka saddexaad ee maraya jaamacadda caafimaad hawla assalamu alaykum عليكم السلام ورحمة الله. هيا kusoo dhawaad magaca ku bilaabay barnaamijka wada socota waxaan uga hadlaynaa Soomaa ها وأنا سهلة سفي عن
marka wala waan fahmay laakiin waxaan UK la jooga faafaan leeyahay haye waxa jirta wala waxaan ku weydiin lahaa dadka kooxda qaba shabada iyo hadda dunida jarayaan bilaad kadi korka maxay qaar ba yireen maxay lacagta tan waa hibadu lacagta shabada la iska doonay waxba xaaraan oo ridaa ah oo lacag badan hadii la soo gelino laga rabaa marka waxaan rabaa inaan galo meesha kan melay aadan magaceedu waa laqsanaa tiri waxa weeye sanadkii intaad dhigatid ayaa adigoo dhiganaya ayaa abuunugu siinaya looyarnimada noocaas ku barayaan markaasi dhowr boqol wigilaa dhowr boqol bay ku siin karaan hadda markaad ama 3 sano ku dhamaato ayaa meesha qofkale ma doondoona sidii meesha labka bariga laftiisa looyarnimada aad kaga shaqaynayso oo aad looyarnimada aad halkaad ka baratay inta adigoo shahaadada aad shaqalaan hada ku dhigi lahaa halkaas 3 sano aad joogtay haddana hadda shaqadii cala dul kuu siinaya iyagaana ku baraya marka looyarnimada waxaas ku baraya hal lacag lama loo xaaraan maha waa bilaash haddana waxay ku baray wigi lacag ku siina waana ka baranaysa taas markay ku dhigaatada iyada lafteeda marad u ka shaqaynaysa taasay hadda magaceedu ay leedahay ido waran wala ma jirtaa waa gartay maxaad fahantaa Cabdiraxmaan wallahi أنا قف جاعدي waxaan u fahmay waxa weeyaan barnaamij badan waxa jira in lacag la isasiyo apprenticeship program ko kale ama internship ko kale ama traineeship ko kale ama graduate scheme wax la yiraahdo oo kale oo waxa jira de ama 2 sanadood ama 3 sanadood ma garanaysa oo ma garanaysa de waana shaqaynaysa waxna waa baranaysa marka haddii ay magacay sheegi lahayd oo soo qaban lahaa waxa kale oo jira medical field UK radiography oo kale x-ray oo kale ma garanaysa haddaad hesho wasaaradda caafimaadka bixinayso iyadana lama helo laakiin way jiraan lambar Soomaaliyeed oo helay maxay ahaydey marka haddii ay company uu ku siinayo wax la sponsorship sponsor siinayo fee ka bixinayo oo aad maalin loo shaqeynayso inta kale aad maxay ahaydey wax baranayso uu fiican yahay hadii yahay internship uu fiican yahay hadii yahay apprenticeship uu fiican yahay marka hooyada waxaan filayaa inay kala garan weydo kuwa waxaan ku goorinayaa inay u dayso programkan maxay ay dooratay uu fiican yahay maadaama lacag la siiyay hadii shaqo uu galayo waayo wadanku imika waa career karaan aad waa ma saddex rahay waxa khadka xiga halo salaamu calaykum halo السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مقعد كبرو إن شاء الله ومقعد مصطفى لي هذا ولا وحان هيستويل ير سندكي ugu horeeyay 2 sano ugu dambeysay sanadkiisa hore ku jira wali uma hadda wuxuu doonayay inuu barto صح أنا waxaan la jeclahay sida uu ninka odayga khiyaarka khayraadka uu sheegay inuu ama engineering barto ama uu dhinaca medicine ka u baaro laakiin wali ma una go'aansanin wuxuu rabo صح waxaan marka jeclaan lahaa bal haddii sidaanu qorsheynay halkan UK nooga suurageli weydo wadamada ay ilaa ay hadda hayaan ay calaaqaad kala leeyihiin ee qiimaha jaban leh ee medicine oo doonaba noqotee loo aadi karo inuu bal noo sheego iyo qiimaha $2,000 ama $3,000 inay nolosha ku jirto iyo in kale oo biilkii in kor loogu daro ay qasab noqonayso oo ayna kamid ahayn fiiga $3,000 ama $2,000 ayna nolosha ku jirin iyo inuu ku jiriyo in kale واي أبو مصطفى ما صدق مصطفى هذه سؤال عادي هذا مناكسن marka ugu horeysa anigu waxaan kuula talin lahaa waxaan joognaa UK baan joognaa waxbarashada UK na aad iyo aad baa adduunka looga qiimeeyaa dadka UK jooga had iyo jeer choice ugu dambeeya weeyaan inay UK ka baxaan oo magaraysa hadduu marka ardaygu yiraahdo ama magaraysa ma qaadanayo hadduu ardaygu yiraahdo waxaan doonayaa waan ka waayo waan niyad jabay hadduu ardaygu yiraahdo ma garanaysa maxay ahayd dambiyan galayo jaamacaddii way soo diido waxay criminal record bay ga heleen ardayda noocaas oo kala ah ayaan had iyo jeer aanu ku dhiirigelinaa inay ka baxaan UK way wadamada sheegay ay tagaan haddaan dib ugu soo noqdo ma garanaysa AS-ki ama first year-ki sanadka hore ma garanaysa further education-ka A-level-ka AS-ka la yiraahdo 4 maado ayuu ilmihi qaadanayaa waa sanadka ugu adag hadduu sanadka 4 maado dhaco way ka erayaan college-ka ama school-ka ama sixth form-ka taas ardayda Soomaaliyeed ma oga aniga waxaan maalintii shaqeeyay ardayda laga soo eriyay garanaysa A-level-ka marka AS-ka ama A-level-ka sanadka hore waxa la doonayay inuu dadaalo 4 maado mid waa isbeer saddex buu marka sanadka labaad qaadan doona
marka afarta maado marka la dooranayaan waxaa ma garanaysaa jira la taliyaa anagoo kale ah marka afar maado oo wuxuu qaadanayaa uu sitaa ilmo kastiba isqaadan kara ama uu engineering field ku geli karo ama uu arts field ku geli karo ama uu medical field ku geli karo anigu ka garan maayo afarta maado qaatay waxa la doonayaa afarta maadada inuu A ilaa C inta u dhaxeeya keeno ka bacdina markuu keeno A2ga wuxuu keenaba jaamacadu gelayaa taa ogow hadduu sanadka hore A levelka AS-ka dhaafo sanad oo xataa dhaco A2ga sanadka labaad hadduu dhaco jaamacadaha hoosuu gelayaa hadduu grade dhexe keeno jaamacadaha dhexu gelaya hadduu grade sare keenana jaamacadaha sare ayuu gelayaa haddana taa ku daayo oo iyada priority aan siinayo inuu ilmahaasi afartaa maado baaso sanadka hore uu aad u adkeeyo si uu sanadka labaad u galo sanadka labaadna waa guarantee hadduu A iyo B inta u dhaxeeyo keeno jaamacadu gelaya jaamacaduhu waxa weeye waxay leeyihiin qaar sare iyo qaar dhexe iyo qaar hoose markska ay ku xidhan tahay haddii qaar hoose keento ku hoose gelaysaa wadamadan aan kuu sheegayo ee aan maxay ahayd aan kuu sheegayo maadaama aad UK joogto wala ogaanaysid qofka imanaya Africa ama Asia waxay ku xidhan tahay luqadda dheeraadka uu ilmaha GCSE foreign language ku sameeyay hadduu afka Jarmalka ku sameeyay waxaan ku boorinaynaa inuu Jarmalka interagereeyo jaamacad ka galo hadduu af Faransiis ku sameeyo oo uu ku baasay GCSE-ga yaa option-ka labaadna Faransiiska ay noqonaysaa haddii uu doonayo wadamada kale ee raqiiska aan kuu sheegaya way kala raqiisan yihiin waxa ugu raqiisan wadamadan yaryar ee ruushka ka go'ay hadda lacag yar wax ku baranaysa sida Georgia Belarus oo kale Ukraine oo kale ruushka oo kale deetana Bulgaria Romania ilaa Turkiga waxba isma dhaamdhaawaan jaamacadu waxay qaybsanaa qaar kuwa dowladda oo raqiisa iyo kuwa barafidka wala qaaliya waxay ku xidhan tahay haddaad UK tagaysa inaanay u tahriibin inaad waxbarasho isir u doonato waxaa la doonayaa inaad halkan ka mida dhaliso oo halkan marka digaagka madaxa kusoo dhufato aad talina ka soo raadsato markaasaan ku hagaynaa insha Allah Mustafa dabcan waxaan jeclahay inaanu Cabdiraxmaan isagoo isku day in badan inaanu su'aashaadii aanu si kaafi ah uga wada jawaabin farsamayaqaanka ayaana ku haasinaa Cabdiraxmaan lambarkiisa waana soo insha Allah si aan information intaa ka badan aan ku siiyo insha Allah waxaan jeclahay bal markaa khadka ugu dambeeya inaan siiyo daawadaha aadii ugu jiro halo assalaamu calaykum halo assalaamu calaykum wa alaykum salaam waraxmatullahi magacaada bilaaway maxaad weydiinahay Cabdiraxmaan mursal cumar baa la yiraahdaa walaal waxaan weydiin lahaa nin ka baxay jaamacad halkan Saudi Arabia haye oo scholarship haystay engineering bartay civil engineering raba inuu takhasus master degree ingiriiska ku sameeyo sidee loo ugu sahlan ama sidee uu idin kula soo xiriiri karaa sidee ugu sahlan uu ku heli karaa waxbarashada لأن waxay jaamacad halkan uu ka baxay jaamacad Qura engineering oo accredited Mareykanka ayay aadan ku halkan ka baxay badankood Silicon Valley ayaa accredited kuwa marka Ingiriiska ma aqaan sidee baan ku heli karnaa London buu jecel yahay inuu wax ku baro صافي والله هذه هذه قالوا تاي احنا ماستر كلنا وحو كوسغرينا لعق هذه قاليا سندك هروحو كوسغرينا الى يو لعقتو ku noolaanayo ardaygi waa ilaa 15 kun ilaa 30 kun oo magaranaysa ayuu ku koosgareynaya jaamacadaha wanaagsan marka ardayga sidaas oo kale waxaan kula talin lahaa magaranaysa dhaqaalihiisa duu aad u yar yahay waxaan kula talin lahaa wadamadan in East Europe oo kale ka sameeyo for example kale isagoo kale in wadanka weyn Ruushka ka sameeyo Ruushka waa guarantee 14 kun oo dollar buu kaga soo baxaya 18 bilood oo master ah marka wuu la soo xiriiri karaa deetana shan jaamacadood oo magaranaysa technical university oo engineering ama wuxuu doonaya ku takhasusay ayuu abalay garan karaa magaranaysa waana isna wuu iman karaa magaranaysa waxay ku xiran tahay baasaboorkiisa iyo shahaadadaha ayuu magaranaysa diyaarsanaya ka bacdina waan ka caawinaynaa waxaan siinaynaa connection kan siinaynaa sidoo u abalay garan lahaa waad mahadsantahay Cabdiraxmaan waxaan jeclahay in barnaamijka intaan soo gabagabeyn soo ugu dambeysay inaan ku weydiiyo oo ah in dabcan waxaanu focus ka saarayna ka hadlayno waxbarashada waddanka Ingiriiska caqabadihii iyo xalkii iyo xoodhan waynu ka wada hadalnay bal talada ugu dambeysay daawayaasha guda iyo dibadda aad siin lahayd maxay ahayd talada ugu dambeysay waxaan ku waxaan magaranaysaa siinaya dadka la shaqeeyo UK waxaan sheegay imtixaanka waxa la soo dejinayaa sanadka waxa la soo dejinayaa 15 ka magaranaysaa July ayaa waxa sheegaya Ox waxa la soo dejinayaa 15 Ox imtixaanka marka la soo dejiyo
waa maalinta ma garanaysaa inta badan ardayda GCSE-ga sameynaysa iyo ardayda A levelka sameynaysa ardayda ma garanaysaa isu diyaarinaya jaamacadaha markay sameynayaan ardaydu markay waayaan shantii jaamacadood ee ma garanaysaa ay hore u doorteen ay u abaalgareeyeen waxaa jira 2 cisho oo auction ah oo jaamacadaha ah waxa weeyaan 15 ilaa 18 maalmaha imtixaanka marka la soo dejiyo August waxa weeye inuu jaamacadihii waayo mooyee jaamacadaha kale uu telefoon ku waalo hadday position ka banaan yihiin hal iyo jeer positionada way banaan yihiinoo markas wax lagu saxay ay hoos loo dhigo marka kor loo qaado taa inuu garanayno laakiin istaan bayga inay ku jiraan oo aanay dhoofin kuwa doonaya inay samarka fasaxyada tagaan waana soo noqdaan inta ka horeysa 15 August si aanay jaaniskooda u garanaysaa uluskana waa very important intaas ka baxay وهذا باوغي كاس وحوها عبد الرحمن يوسف محمود oo ah la taliye xagga waxbarashada degana galbeedka magaalada London xaafada Brent waxaanu ka hadlaynay jaamacadda sare ama waxbarashada sare aan idhaahdo wixii su'aalaha ku saabsan mawduuca barnaamijkan waxaan jecelahay inaad studio la soo xiriiraan si aan idiin siino Cabdiraxmaan telefoonkiisa Cabdiraxmaan wixii tafaasiila iyo macluumaad oo halkaas oo idinka sii gaarsiiyo soo saaraha barnaamijku waa aniga Faysal Aadan Miicad dhanka kaamarada waa Maxamed Cadaawi farsamada toddobaadka dambe intaan ku kulmi doono barnaamijkan mid lamid ah dhamaantay waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum wa raxmatullaahi tacaala wa barakaatuh